taageerayaasha Korneyl Maxamed Axmed Caalin ayaa isugu soo baxay guriga Korneylka hortiisa kuwaasoo sitay calamo iyo boorar ay ku muujinayaan inay ka soo horjeedaan go'aankii baarlamaanka Galmudug ay xilka uga qaadeen madaxweynaha Galmudug Korneyl Maxamed Axmed Caalin. dadweynahan oo ku qaylinaya erayo ka dhan ah golaha baarlamaanka ayaa isugu soo ururay fagaaraha guriga madaxweynaha Galmudug oo xilkiisa madaxweynenimo weli muran ku jiro waxaana khudbad ka horjeediyay taageerayaashan afhayeenka maamulka Galmudug Axmed Baasto wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cuuka Xaaji Cabdiraxmaan oo aan goobjoog ka ahayn mooshinkii baarlamaanku ku rideen madaxweyne Caalin. shirka dhacay ee la rabay in lagu marin habaabiyo dowlad goboleedka Galmudug ma aanan ogeyn xaqiiqada saaka dhabtan ka hadlaya ma aanan ogeyn oo la ima sheegin ciddii ii sheegtay ee ii timidna way hadli kartaa way sheegi kartaa waxaa xaq u leeyahay haddii mooshin uu jiro oo baarlamaanka uu ka jiro in la ii yeero inaan fikirkayga ka dhigto shirgudoonnadu waa 3 hal shirgudoon haddii uu ku tagarfulo kuma tagarfuli karo waxa mujtamac bulsho ay ku heshiisay waxa weeye marka waxaan rabaa inaan caddeeyo dastuur baa la samaystay bulshada reer Galmudug ayaa ku heshiiyey beeraha ku heshiiyey annagana wakiilay naga dhigteen shacabka reer Galmudug inaan khiyaano oo marin habaabino waa wax aan shariicada islaamkana aan ku bannaanayn insaanimadan aan ku jirin dadkan maanta abaaraha iyo dhibaatada colaadaha soo marana maanta qofka dhaxsameeya cawaaqib xumo uu ka dhaxlayo waxa weeye anigu maan joogin leema yeerin leema sheegin baarlamaanka markuu fadhiga leeyahay in la isku yeero ciddii marshin wada ay sheegto ba xaq u leeyahay maanan ogeyn. arrintan dareenkooda ay ku muujinayaan taageerayaasha Caalin ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli weli go'aan laga sugayo golaha garsoorka Galmudug oo labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanku ay qoor dhiibteen in ay ku soo kala saaraan isqabsiga u dhaxeeya labada gole. liibaan ciise cumar TV-ga caalamiga Universal dalkacyo.